xaaladda magaalada Xardheere ee gobolka Mudug ayaa maanta kacsan kadib markii israsaasayn dhinacyada ay isku adeegsadeen muddo ay socotay. xiisadan waxay soo laba kaclaysay kadib markii wada xaajood dhinacyada ay galeen ay sababtay in xiisada la dajiyo. labada gudoomiye waa gudoomiyihii hore ee degmada iyo gudoomiyaha cusubna looga yeeray magaalada Muqdisho si loo dajiyo xaaladda isla markaasna rarka ay ka dhasheen ay ugu heshiiyaan dooda kursiga ee ka taagan magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. gudoomiyaha hore ee degmada Xardheere ee gobolka Mudug ayaa shalay Muqdisho u safray sida aan xogta ku helnay, waxaana qorshe u ahaa in gudoomiyaha cusub maanta uu tago Muqdisho. taas beddelkeed waxa uu doorbiday inuu subax hore ee saaka u safro magaalada Xardheere ee gobolka Mudug isagoo xagal daacin ku sameeyay wada xaajoodkii hordhaca ee arrinta laga gaaray. gudoomiyaha cusub oo xalay ka safray magaalada Dhuusamareeb ayaa barqanimadii maanta gaaray magaalada Xardheere ee gobolka Mudug, waxaana socdaalka ku heliyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Galmudug. iyagoo doonayay in warbaahinta kula hadlaan fagaara ku yaala magaalada Xardheere ee gobolka Mudug ayaa rasaas geesaha kaga timid, taas oo sababtay in muddo rasaas ay ka dhacdo magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. sidii la rabay mawsan u qabsoomin shirkii jaraa'id ee qorshe ahaa in lagu qabto argada magaalada Xardheere ee gobolka Mudug, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo xogtaan inuu ka helnay. waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhaqanka degmada Xardheere ee gobolka Mudug oo geestooda shir jaraa'id ku qabtay maanta Muqdisho ayaa mar kale eedda wixii ka dhacay Xardheere dusha u saaray maamulka Galmudug, kuwaas oo ay sheegeen in xagal daacin ay ku wadaan wax kasta oo xal loogu heli karo xaaladda magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. dhawaan madaxweynaha Galmudug ayaa xilka gudoomiyaha degmada Xardheere u magacaabay mid ka mid ah ilaaladiisa qaaska ah, kaas oo xilka qaadistiisii uu sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyihii hore ee degmadaas. gudoomiyihii hore ee degmadaas oo tiro horjara warbaahinta la hadlay waxa uu sacad ugu goodiyay inaysan jirin wax ka tirsan Galmudug oo tegi kala Xardheere, balse waxa uu qaatay waan iyo wada xaajood kaga yimid eheladiisa, taasoo ahayd in lagu dhexdhexaadiyo isaga iyo gudoomiyaha cusub beeshuna ay go'aan ka gaarto arrinta kursiga Xardheere. markii uu hoggaansamay amarkaas waxa uu la kulmay dhacdaan ah in gudoomiyihii cusub saaka uu tago degmada Xardheere ee gobolka Mudug.